93 دقيقة 20 البرقسي ودقال ساعات تاريخي وعان كان مقالة مانشستر وأمين أي قرشاكتدو البابادي حيران لهايد سي كوحدة مالية دعس وقفر حسو بلس قدركو كوي مد بالاشي سيسيو وروحو تربونك إتهاد ستاديوم ونرقو حقال 360 دقيقة قلوبتا كوحدة موادنين تا مانشستر سيتي وأصيد مالن لي حرية دقاتين دلشada goolkan ilaa iyo maanta ma jiro waqti ka caansan 93 daqiiqo 20 ilbirqsi oo ku suntan buugga taariikhda kooxda Manchester City waa ilbirqsiga ay gilgilatay guud ahaan magaalada Manchester waxaad u bixin kartaa habeenkii Sergio Kun Aguero si lama filaan oo aan hore loo arag ay kooxdan isaga reebtay kooxda ahaan ka yar laakiin ka caansan kana koob badan daawade xasuustaada ayaan dib u celin doonaa ee inala joogay laay dhamaadka si wada jiraan dib ugu milicsana maanta filka sooyaalka kulamada taariikhiga ah ee kubadda cagta ka tilmaaman aynu isdul taagno ciyaartii ugu yaabka badneed ee taariikhda kubadda cagta Ingiriiska dheeshii dhaxsatay gigada Etihad Stadium oo ay Manchester City qaabishay Queen's Park Rangers ciyaar qayb ka ahayd horyaalka Premier League ee Ingiriiska maalintii ugu dambeysay kal ciyaareedkii 2012 ka hor intaan ciyaarta gudagelin aynu qoraansanno waxa uu micno ahaan kulanka ka dhignaa iyo xaaladda labada kooxood ee iswajahaya markaasi Manchester City waxay hoggaanka ku haysay farqiga goolasha waxaana ay dhibco ahaan la sinnaayeen kooxda ay xifaaltamaan ee Manchester United taasi oo micnaheedu uu ahaa inay ku guuleysan doonaan horyaalka haddii ay la mid noqdaan natiijada ay hesho Manchester United ciyaarta ugu dambeysa Manchester City ma aysan haysan koox sahlan ciyaareedkan awood badan ayaa ka muuqatay kooxda uu maamulo Roberto Mancini Queen's Park Rangers iyadoo halis bay ugu jirtay inay u dhacdo heerka labaad waxaana ujeedka dagaalankoodu uu ahaa inaysan ka dhicin tareenka tartanka horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedka xiga Manchester City waxay la dhibaatoonaysay jiilal koob la'aan ah waxayna 44 sano sugayeen inay dhacdo maanta oo kale oo u muuqdo koobka horyaalka Premier League si ay u hantaan waxaana taasi uga sii daran inay fursad ku haystaan inay dhulka ku jiidi karaan cadowgooda magaalada Manchester ee Red Devils iyadoo weliba uu maamulayo Sir Alex Ferguson oo kooxdan ku tilmaamay inay tahay koox daciif oo kal hore leeliyaha ka soo jeeday Scotland wuxuu dhowr sano ka hor ku tilmaamay Manchester City inay yihiin daris buuq badan laakiin aan tabar badan lahayn hadalkaasi wuxuu kiciyay taageerayaasha Manchester City ciyaartoyda iyo xitaa maamulka Roberto Mancini waxa ka go'nay inuu hadalkaasi kaga jawaabo maalinta ugu dambaysa horyaalka leeliyaha Talyaaniga ah wuxuu ciyaarta ku soo galay 4-2-3 weerarka kooxdiisa waxaa hogaaminayay Sergio Kun Aguero waxaana gadaal ka taagnaa ninka isku dalka ka soo jeedaan ee Carlos Tevez iyadoo labada garbood ay ahaayeen David Silva iyo Samir Nasri qadka dhexe waxaa rukumada u taagayay mashalaayaha ugu jaalaha badan uguna safashada badan guud ahaan horyaalka Ingiriiska ee Gareth Bale iyo libaaxii awoodda badnaa ee Yaya Toure waaxda gaashaandhigga City-na waxaa taagnaa Vincent Kompany oo ay welinayeen Lascott, Clichy iyo Sabalata golayaha kooxdan wuxuu ahaa Joe Hart ciyaarta si fudud uguma bilaaban Manchester City waxay heleen fursado dhowr ah balse gool uma uusan dhalan daqiiqadii 39aad waxay Manchester City heshay gool qurux badan Pablo Sabalata ayaa shabaqa ku talay kubaddu si xooggan u laaday taa oo ka baxsatay gacmaha golaha Kenny kubadda oo birta ku sii dhacday ayaa dhaaftay xariiqa ka hor inta uusan soo celin golaha QPR waxaana garsoore Magdin uu tilmaamay in kubaddan ay gool tahay taa oo ay hoggaan ku qabatay Manchester City ciyaarta ugu socoto si wanaagsan kooxda Citizens nasiib darro ayaa dhacday Manchester City waxa ka dhaawacmay qaybta koobaad oo aan dhamaanin Yaya Toure culays badan ayaa la saaray Manchester City iyadoo qaybta labaad markii ay bilaabatayba wax walba isbedeleen QPR waxay la yimaadeen goolka barbardhaca kadib qalad uu sameeyay Lascott oo kubad joog sare ku socotay si qaldan madaxiisa ugu dhuftay Cisse ayaa dhaliyay kubad gantaal ah oo uu natiijada kaga dhigay gool iyo gool iyadoo la ismari laayahay kabtankii QPR Joe Barton ayaa casaan loo taagay kadib markii uu saf ka maray xidigaha Tevez, Aguero iyo Kompany oo uu mid walba jogsiiyay sidoo kale wuxuu ku dhawaaday inuu feero Super Mario Balotelli ugu dambeyn el Capitano Joe Barton waxaa laga saaray garoonka taasi oo fursad weyn siisay Manchester City maadaama QPR hal xidig ay dheer yihiin Super Mario Balotelli
kursiga keedka ayuu weli fadhiyey laakiin doorkiisa ciyaarta wuxuu qaadan doonaa marka uu gudaha u soo galo xindaabka cagaaran. QPR waxay heleen gool labaad. Maki ayaa madax ku dhaliyey kadib karoos uu ka helay Traore. 2 gool iyo gool QPR ayaa hoggaanka ku qabatay markaasi. xaaladda ayaa ku xumaatay Manchester City waxaana ay kooxdu u baahan tahay 2 gool. Roberto Mancini wuxuu ciyaarta ku soo daray 2 weeraryahan oo mid walba uu khatartiisa leeyahay. Edin Dzeko iyo Super Mario Balotelli oo wada jira ayaa qaatay mas'uuliyadda si ay ciyaarta wax uga beddelaan. dadaalku wuu bilowday. Edin Dzeko wuxuu isku dayay inuu gool dhaliyo laakiin uma suuragelin. sidoo kale Super Mario Balotelli gool ayuu isaguna isku dayay balse goolaha Kenny ayaa diiday in shabaqiisa la tago. 90kii daqiiqo ciyaarta loogu talagalay way dhamaatay. City weli waxaa lagu leeyahay 2 gool iyo gool. waxaa la siiyay 5 daqiiqo oo dheeri ah. taageerayaashu waxay ahaayeen kuwo qalbiga ka gubanaya, qaarna waxay ahaayeen kuwo oynaya. waa 44 sano koobkii ay sugayeen oo hortooda lagu qaadi doono, magaaladoodana lagu soo wareejin doono oo ay naadiga Manchester United qaadan doonaan. 92 daqiiqo Silva ayaa soo qaaday kubad koorna ah. Edin Dzeko ayaana shabaqa ruxay kadib markii uu kubadda madaxa la helay. 2 gool iyo 2 gool ayuuna ciyaarta ka dhigay. weli 1 gool ayaa qasaba inay la yimaadaan Manchester City si horyaalka ay dhibco ahaan ula sinmaan Manchester United, taa oo ka yeelaysay in farqiga goolasha ay ku qaadaan. dhanka kale ciyaartii United way dhamaatay wayna guuleysteen, waxayna sugayaan daqiiqadaha lagu daray ciyaarta Manchester City oo u baahan goolal. 93 daqiiqo iyo 20 ilbiriqsi Sergio Aguero ayaa qaatay mas'uuliyadda. waxa uu go'aansaday inuu isku qoro taariikhda horyaalka Ingiriiska iyo kooxdiisa Manchester City. ninkan jooga gaaban wuxuu helay kubadda, wuxuu si degdeg ugu dhiibay Super Mario Balotelli. inkastoo uu la kulmay raacasho adag wiilka Talyaaniga ah, haddana isagoo sii dhacaya ayuu kubadda dib ugu celiyay Aguero. waxa uu galay xerada ganaaxa isagoo ay ka go'an tahay inuu kubaddani meel mariyo. xerada ganaaxu waxay u muuqatay mid mashquul badan oo difaacyadu ay dhooban yihiin. wiilka reer Argentina ayaa iska leexiyay difaaciisa soo qadimay, wuxuuna kubadda u tuuray si awood leh oo aan la celin karin. waana ilbiriqsiga uu dhashay goolka beddelay taariikhda kooxdan, weligiisna lagu xasuusan doono Sergio Aguero. Aguero waxa uu go'aamiyey horyaalka, wuxuu noqday halyey. garoonka Etihad ayaa dumi rabay, magaalada oo dhan ayaa laga dareemay guusha Manchester City. inkastoo dhanka Manchester United ay mugdi iyo baroordiiq noqotay ilbiriqsiyadaasi. taariikh baa la qoray. 93 daqiiqo iyo 20 ilbiriqsi ayaa noqotay lambar bartilmaameed ah oo lagu garan doono guushii ugu weyneed ee Manchester City ay gaartay taariikhda intay aasaasan tahay. sidoo kale waxaa la yaab ahayd in xitaa QPR ay dabaaldegeen sababtoo ah Stoke City iyo Bolton waxay ku dhammaysteen barbaro 2 gool iyo 2 gool ah, taasoo QPR ka badbaadisay inay heerka labaad u dhacdo. sawir cajiib ayaa la qaaday. waa Samir Nasri iyo Cisse oo gacmaha is haysta, muujinaya sida labada kooxoodba ay u wada faraxsan yihiin. taageerayaasha Manchester City waa markoodee waxay xirteen boorar ay ku qoran yihiin Not in my lifetime oo ah qayb ka mid ah ereyada Sir Alex Ferguson oo micnaheedu noqonaya forjo ah. waxaa tiri loolanka kuma guulaysan doonto inta aan noolahay, laakiin way ku guulaysteen. City way guulaysteen, waxayna noqdeen horyaal markii ugu horreysay muddo 44 sano ah, iyagoo ku qaaday horyaalkii dhammaa farqiga goolasha. waan ogahay waxaad rabtaa inaan xaqiiqo kale oo la yaab la kuu sheego. Phil Foden markaasi 11 jir ayuu ahaa, isagoo taageeraya kooxda City wuxuu soo galay garoonka si uu ugu dabaaldego horyaalkaasi. 11 sano kadib isagii baa ciyaartooy ah oo garoonka jooga, waana markay kooxdii City ku guulaysanayso koobkoodii Champions League ee ugu horreeyay taariikhda. maalintaasi wargeysyada kala duwan ee kubadda cagta ka hadla mid walba ciwaan buu qaatay. New York Times waxay ciwaan ka dhigeen dhammaadkii ugu la yaabka badnaa ee horyaalka Ingiriiska ee abid la arko. BBC ayaa iyaduna tiri riwaayad kubadeed oo aan hore loo arag. Bleacher Report waxay ku cabireen maalintaasi waa sida ugu habboon ee loo dhammeeyo xilli ciyaareedka ugu fiican. daawade haddii aad shaki ka qabteen ciyaartan ay tahay mid aan sidaasi u sii weynayn, bal ii sheeg adiga ciyaar ka yaab badan oo horyaal lagu qaaday oo tan ka xiiso badan.